munaasabadani oo ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo dhawaan laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya waxaana munaasabadani ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Kenya iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii soo mara Soomaaliya odayaal aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa ka sheekeeyay qaabkii loo dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo sida hadda lagu soo daayay waxayna intaasi ku dareen inay aad ugu faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan xafladani lagu soo dhaweynayo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadan aan joogno way ka duwan tahay munaasabadihii kale ee aan soo mari jiray waxayna xasuusinaysaa maalintii SYL shanta Soomaaliyeed u dagaalamaysa meel kasta ay joogaan xafiis ay ka furteen qolo kasta oo Soomaaliya oo markaasi muwaadiniinta qalbigooda ku jirtayna ay ka dhigaysa maanta walaalkeen Cabdikariin Qalbi Dhagax wuxuu isu keenay shanta Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya ee federaal waad aragteen halkuu iska taagay wala wasiiraa soo saaray maxaa la yiraahdaa go'aankii si sharaf leh oo taariikhi ayay ku deedafeen waa wax taariikhda gashay ay ku deedafeen oo diideen golihii wasiiradu go'aankii soo saaray waxa nasiib wanaaga in dawladda Itoobiya baarlamaankeediina uu ku raacay kii Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliyeed waa mahadsan yihiin inay ka dhiidiyeen go'aankii la soo saaray waxaan leeyahay abwaan gaari wuxuu yiri gafka bashar baan u tahay gafka bashar baan u tahay haddaad ka garaawdo qalad gobbay caadada madaxda Soomaaliya waxaa deeqa Cabdikariin waa ka xunnaha deeqda umaleeyaa ka badan oo ka raba hadeerta waxaan ka rabnaa kaliya madaxda ay dhahaan waa ka xunnahay bas waxaan sameynay qaladay ahaayeen waan ka xunnahay intaas ka badan kama rabno ugu dambeyn Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka hadlay munaasabadani ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta marxaladihii uu soo maray iyo cidda sida rasmiga ah uga qayb qaadatay siideyntiisa waxa uuna bulshada Soomaaliyeed uga mahad celiyay sidii ay u garab istaageen waxaan iyadana rabaa inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana إيسي دايو يقولون ما تقابل حسيس كذا وعمل هذا علينا يا رئيس وزراء أبي أحمد حبك وقول رقمي إسبدل كا وسود دايي محابيسي كوتشر تشيله شيء توبيا أنت والله بدلنا حق دروحنا هذا يا سنانتا وسود شيء قفل بين الدنيا حق واجب كوليه إنه مريو إذا ناسكنا وحنقيل هاي halka aynu ka sii wado in kasto uu dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahad celinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiinta kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo oona leeftu u xidhnay habku ula dhaqmay ay habku u sii daayay sidoo u maamusay aad baan ugu mahad celinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku u sii daayay isagoon cidina tala ka siinin isagoon cidina wax qorshe ka siinin cidda kaliya ee uu sheegay rag ayaga kamid ah maaha isaga uu sheegay hawsheeda markaa wax ka weydiiyay wuxuu hal nin arrintaada in badan lagu soo celceliyay marna si ka fool aan isaga arag wuxuu ahaa biir Axmed Madoobe ma cadaynta Cabdishakuur Faarax Igale Universal TV magaalada Nairobi